ururka samafalka ee tawfiiq ee ka howlgala goboladan Awdal iyo Salal ayaa maanta deeq lacageed oo soo direen qaar ka mid ah qurbajooga Soomaaliyeed waxa ay ku wareejiyeen waalidka dhalay gabar yar oo muddo 3 sano ah si weyn ugu xanuunsanaysa gudaha magaaladan Boorama. Gabadhan xanuunsanaysa oo magaceeda lagu magacaabo Umulkhayr Cabdilaahi ayaa waxaynu ka baahinay muddo laga joogo toddobaad TV-gan iyadoo ay u soo jawaabeen qaar ka mid ah dadka qurbajooga ah. Madashii deeqdan loogu wareejinay waalidka dhalay gabadhan xanuunsanaysa waxaa ka hadashay Marwo Roodo Ibraahim Rijaal iyo Mahdi Aadan Riiraash oo ka mid ah ururkaasi tawfiiq ee dhanka samafalka uga howlgala goboladan Awdal iyo Salal. Ibraahim Cabdilaahi oo ah walaashayda bugta ee halkan inoo jiifta maxaan ku raadin muddo 3 sanadood iyadoo aad shaashadaha hore uga aragteen waxa maanta u timiday deeq lacag waxa soo diray $100 wiil walaalkeena oo xanuunsanaya oo Sacuudiga jooga oo aan magaciisa la sheegaynin oo Ilaahay uga baryayno cidii maqashaan Ilaahay uga baryayno inay u soo duceeyaan in Ilaahay caafimaad degdeg siiyo. waxa kale $100 soo diray Cali Bashiir oo jooga wadankaas Switzerland oo khayr Allah siiyo isaguna markasta uu baqlo qof dhibaataysan aan khayrka marnaba nagala helin isaguna waxaan leeyahay Ilaahay awlaadii ma kala haw barakeeyo. waxa soo diray $100 oo kale Farxaan Aadan Warsame oo isla wadankaas Switzerland jooga waxaan leeyahay khayr badan Allah ku siiyo miisaaq xasanaadkana Allah kugu daro. waxa soo diray $225 hodan Ismaa Faarax oo joogta Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii waxaan leenahay gabadha walaashaya khayr badan Allah ku siiyo Ilaahayna yawm qiyaamaha miisaaq xasanaadka kugu daro. $50 waxa soo dirtay walaasheen joogta Sacuudiga oo la yiraahdo Triig. $1 waxa soo diray arday yar oo kamid ah ardayda magaalada Boorama oo brigiisii ku soo darsaday. isku geyn lacagtaas waxa weeyaan $576 waxaan Ilaahay uga baryaynaa inta sadaqada maanta aan u fadhino la soo baxday ku yar iyo ku weynba in Ilaahay kaga xijaabo naaraha. waxaan ku wareejinaynaa hooyadii dhashay Umulkhayr oo ah hooyada halkan la fadhida magacaayisha Aamina Cabdilaahi oo Umulkhayr hooyada $576 iyaan ku wareejinaynaa annaga ururka tawfiiq lacagahaasina meelaha ka kala wada yimaadeen waxaana lacagtan loogu tala galay in si degdeg ah dhakhtar loogu geeyo hadii Ilaahay uu qadaro wixii dambe Ilaahay umada uga soo qaadana oo soo gaarsiinayna hadii Ilaahay noo qadaro. umada walaasha Umulkhayr soo caawisana waxaan leenahay miisaanka xasanaadka Allah inuu daro iniga ayaa iskala maanta qiyaamaha waxaan Ilaahay niga baryaynaa ku Ilaahay carshigiisa wareeyo inuu Ilaahay niga dhigo. waxaa sidoo kale deeqdan ka mahadcelisay waalidka dhalay gabadhan taasoo duco hawada u soo marisay dadka qurbajooga ah ee u soo danqaday dhibaatada xoogan ee gabadheeda muddada 3 sano ah haysatay. Cabdi Fataax Ahmed, Had Wanaag News, magaalada Boorama.